سبحانك يا عظيم بالوحى صوص على إيه وحيرك ما كان هذا كسر نقطة كسماية أوكل على سبيل المثال كسماية وحنا كويلا تكسر الوقت كان على أنت لا والوقت لا يربح كان على أنت عدة أوكل الدبيسير عن قرنك ما أنت الصومالي اللي ما هي الكرة يقيس لي وأنا أتكلم أو الصومالي كلا وأنا أتكلم ما يصير نفسنا أو عندي أكلم نين كستو سود على نين كستو قبصنا نين كستو يمادو حوك شيء سيسالم مكان بحرنا كويلا تنكاسنا مربك عمي كسود عايز نين بمدة هاي سنة يلا هنقطع سيا درادة وحنا دور بدينا أو أنا قادنا أو أي سياسة ضيّر كجديان يا كماملان يا كأورغان يا كل مركز يسقط إن السماء وحكة بدل الكوب يلا وقتك سنة وحكة دعي قبل كاس كسبان يبني بدل ما يصير أنت كبر إني نسيق على الكريم وحنا قارنا إن ضدك أردنا ميسك أو أن أصار أو لا لانسك إمادة ضدك هاي مادة ما مريء ولاين هذا حصاد دولتين سيد الدستور أو قولي قبل لما قبل ينتي كبر الإمام صلى الله عليه وسلم وحنا دين شيئنا كسمايا وانو قبلنا ما ننقب سنين وانو قبلنا شباب بانو كحرين عدو وانو كحرين وحنا قبلنا دادك إسكالها وحنا دولنا دادك إسكالها إنه يسوي مادا أو كأوية هي كأوية قبيل أن الأولانين وماينورتي كذا وماجورتي soomaalida deegaanka degan si kulliya inta u timaado waxaan idin leenahay imaada shirka ka soo qayb gala dawladdu ha hogaamiso iyadoo shirka ha sheergarayso dadku ay isu yimaadeen maamul iyagu ay leeyihiin ha dhisteen waxaan soo tijaabinay tijaabada anaa soo qabsaday dhiiggayaan u soo daadiyey kaadi baan u soo cabay duurkaan u soo wareegay waxaasoo dhan waa tijaabo aan soo maray waxaan soo tijaabinay maamul loo soo magacaabo إلى هبل وأضغطك هبل وأضغطك واتجاوها صومت. وحايا درنا قتة مركا. دولتي فضل على الكاهية لما كون يتضبط وان. إن الجودهان بالمرتين. ودنك واحد وكتير وحي لصومري. وحا نصيب درعين. أركتدا إسماعيل مركا سوق ليني. وحاول إن الميد يناوع. لين مركا ستاربكس فديو كافيه عبي وأنجرني وحا لا صومري وحا جيراي. إنه ما أنت إلى ودك أردن هاد بندب وعلينا وأيان ضر. سيدان وحلايا هاي بلورت يفهمه عقلية بيضيري وريرتي وقرن ما يوحن ميسان ديك الصعودة. حالك قبل كان ما أنت صوالي لبوك فليه وكبريه حالك وقبل كان وحكون نظام كريه أما اللي هو جاري كريه إن داد كان نماذج قوة نورالا وحوالي دادك قبل كدقل oo isu wada yimaado oo maamul iyagu ay leeyihiin gacantooda ku dhista sababtoo waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa waayeel hortiisa caano loogu baxaa haddaan maanta gadaal wax ka soo sameeyo oo caaniyo biyo isku soo daro ninka odayaa markaad u dhiibtaan oo dhabiyo wuxuu leeyahay biyaha ku jira laakiin hortiisa haddii loogu daro wuu garanaya wuuna arkaa sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa cid kasta oo Soomaali baantu ha ahaato baajuun daarood ha ahaado dir ha ahaado raxaweyn ha ahaado hawiye ha ahaado cid kasta oo Soomaali oo deegaankan degan iyadoo la kala saarin oo wax kale loo kala sheegay inay yimaadaan miis gobasha nabadda la yimaado shirkan iyo wadada ee dawladda Soomaaliya sheergaraynayso ay isugu yimaadaan maamul dadku ay leeyihiin ay dhistaan waxaan anagu diyaarinahay inaanu noqono dadka ugu horeeya ee u hoggaansamo shirkaas wax ka soo baxa shirka dadku waxa ay ku dhistaan waxa ugu horeeya ee u hoggaansamo inaanu noqonaanu diyaarino waxaanan marna aqbalaynin inaanu nidhaahno annaga dhiig u soo daadinay waanu soo dagaalanay waxba yaanu ku celin sababtoo warkaasi taariikhdii 20 sano ahayd gobolkan dhibaatada u geysatay iyo meeshay soo martay waa qadiyo mashhuur taas waxay la tahay wacdi yahay mowqifka aanu ka qabno aad ajayba shakhsiga bini aadanka ah baa la yidhi marka uu xishoon waayo dee waxba xayawaan kama dhaamo horeyna fikirkayga waanu sheegay asal ahaan anuu ma ihi shakhsi inuu siyaasadda ku sii jiro danaynaya markaan anu shakhsiyan iska hadlay tanaan joogana inaan taariikh kaga tagaan rabaa xamarra uma socdo madaxweyne soomaaliyana uma socdo waxaan rabaa anoo muwaadin Soomaaliyeed fikirkayga xorta inaan sheegi karayo oon ka hadli karo
waxa aan qabo aan xor u sheegi karay haddii damac uu igu jiro maanta oo 2016 iyo ta kale iyo aan damac kale waxaa laga yaabaa 90% damac aan qaba inuu ii diidayo fikirkaan qaba inaan xor ka noqdo taasaa waxay igu sababaysaa marka inaan barnaamijka siyaasadda aana doonaynin inaan waxaan rabaa ganacsiga inaan ku noqdo beri baa mushtari ahaado ma rabo inaan siyaasad sii quuto inaan kusii jiro ma rabo inaan waqtigeyga siyaasad kusii laakiin waxaan rabaa intaan joogan inaan ka tago magac iyo at least wax taariikhi geli karay talada dambe aan ku yeelan kara haddii ilaahay intaan nafta igu soo inay noqoto talo aan dadka kula talin kara waxaan maslaxo layga dhageysan karaye nin hadda damac siyaasadeed iyo kuraasdayda iyo inaan isu qaawiyo iyo 2016 kana ugu horeysay qof aan wataana ma jirto anna ma socdo laakiin beelo barakalaawe abulshada beentaaskan ku soo barbaare madaxweynaanahay dowlad yar baanahay kursigaygaasaan haystaa meeshaan doonaan la mari heshiiskaan doonaan soo gelayaa meeshaan doonaan xoolo u doonanaya subxaanaka yaa cadiim dheemooye bal idinku dee si dhaha